السلام عليكم dhageystayaal waa qayb kale oo kamid ah barnaamijyadii taxanaha ahaa ee aan ugu magac darnay muuqaalka Soomaalida maanta waxa barnaamijka idin soo diyaariyay Amin Media Limited waxaana idin socodsiinaya Cabdulqaadir Faarax Dulyar oo jooga magaalada Muqdisho وإنسان أقورها رحمنا إسلامه Amin Media وما بدينها الشقة بكينا يقانيمه Amin Media وقيبتي سدحات waxaana marti noogu ah Mahdi Sheekh Ahmed Gooyo oo kamid ah majaajilistayaasha Soomaaliyeed oo ku sugan magaalada Muqdisho maxaa kuugu yaabadnaa xamar waligay Allah waa joogi jiray 1958 ayaan dhashtoonin yar ma ihi wali waa ay dhiman tahay geel xamar dhaxdiisa ganjeele inta laga furo ee guriga dhaxdiisa galo geeda ku yaalan wax ka soo cunaa wali cimrigay waa ay dhiman tahay maxaa kuugu muruga badnaa hal nin oo 7 qofood lagu qala irid ganjeele duleela xabada ay duleelin ayaan ka fiirsanay ninka garbaduubu u xirnaa laba jeer marka midida lagu jiido mar saddexaad mu ku jiidaa nin bar soo ordaa sheekh kalagama cibaadada qaadnayso leh kiya ka bedela la ilaha illa allah la ilaha illa intaas la ilaha illa huwa daldala aniga nabirsi waa koronta iga tag ninka la ilaha illa allah asoo dhaxale madaxiisi go'ay labada dhagood inta la qabtay kor loo taan aleeri mustadka in madaxa ka gooy ilaahu marxaadka dhabarka loo saaro waxa qoyso weexo wala kale u olole waxa xoolo urso استعمارك كربسي Amin Media Amin Media Amin Media Amin Media qadarkaas yaree hordhac kadib ayaa idinku dhaafaya Cabdulqaadir Faarax Dulyar oo barnaamijka idin socodsiiya waa Shariif Cali Shariif oo idin leh dhageysi wacan وهجاج ما سنة شريف ولي وحنا كوجد جرنا برنامج كي مقالة الصومالية مانتا وحنا مانتا أن لكل ما يبل مشاكلست صوماليات وعنك أدلك يدبديسة مركه هرمجا عجوا صدعان مهدي الشيخ أحمد جويو مركه مشاكلستها إن تهاي كسكو شقد هذا جاركا ما هو شاذ معناها بروفيشن كاجو مشاكلستا مسهولة كلا قبطة howlo kala aan qabtaa majaajilista kaliya kuma eke saaxib howlahan garaashada ayaan ka xamaashtaa dhinacaas koomikada iyo dhinacaas oo garaashka waa ka xamaashtaa xamaali marka 20 sano ugu dambeysay wadanka ayaad ku sugneed Soomaaliya mise waad ka maqnayd 20 sano siyaad barbaxayo ilaa iyo hadda hal maalin meel ma ugu mooreynin muddo adiga qiyaastii 7 maalmood kaliya ayaa siyaad barbixiskiisa markuu jiray ayaan baladweyne tagay oo ka soo laabtay inta kala xamaraan joogay marka si kooban bal noogu sharax dhibaatooyinka aad soo martay iyo sida aad naftaada ugu qancisay in maalin dhibaatadan laga bixi doono Soomaaliya ay cageed isku taagi doonto wallahi midaan mid la sharaxi kara ma wax sheeka beeshay bort wax buug la qori kara xataa ma waaba duruus beeshay in meel iska dhigna maanatan farahma iska qaadno iska dhaafno waa laakiin waxna waxaan rabnaa inaad ogaano waxyaabihii aad dalkan kala kulantay ama dhibaatooyinaha ama soo martay walaal macaana dhibaatooyinka la soo kulmarto lama soo koobi karo suuqa xoolaha ayaan deganaa lugtan ka soo bilaabo suuqa xoolaha ayaan waxaan ku keenay jiray bakaaraha idaacad ku taale bakaaraha Shabeelle la dhihi jiray sabti global ayaan imaajiri mishaarka aan ku shaqeeyo baabuur raac iyo wax ma kala go'i karin iyo mishaarkii caruurta iyo biilkii waxaas ma kala go'i karin baabuurtana xilligii Etoobiyaanka ay ugu darneedo qardajeex durka dhinacaas la soo maray 30 kun bakaaraha ku iimaanay 30 kun bakaaraha ku iimaanay mishaarkiisina iska yar yahay baabuur la u shaqeey waay hadda caruurta waxaad ula tagda malaha lugaan ka soo bilaaba salaad subaxeedka markaan dukado qabowgaas aan ku soo lugaynaa ayaan bakaaraha ku keenaa hadhoodii markaan bogo waxyaabihiin aqaan ee dadkeena aqaan markaan xoogaa raaraadsan baawra ama ka shacbursta isiraado waxyaabihiin hela hadana damaca inta igalo ayaan leebal iska lugaynay haw kuwan caruurta basqorha uu sii gadatay hadana lugtii mas booskii ka bilaabay ayaan uu geynaa hadana suuqa xoolaha masaafo dheer waay waxaas dhan waxa igaga daran xamuulka i dul saarnaa 13 qofood macal hooyadood marba hadii ku dul saaran yihiin nuqta waxaas dhan ma dareemin waxaan go'aansaday markii dambe inaan cibaadada iska badsado alla tuuga qofka muslimku waxa loo baahan yahay ducariir ama dhibaato ula kulmo samirka iyo cibaadada inaad badsato dibkii maadaama uu ziizaadi samirka iyo cibaadada iska badsad alxamdulillah laabtii waan way qabowday waxaas igu siiyaa badneed xamar waligay Allah waa joogi jiray nin waa sanadkiisana yar yahay ma ihi oo 1958 ayaan dhashtoonin yar ma ihi wali waa ay dhiman tahay geel xamar dhaxdiisa ganjeele inta laga furo geed ku dhex yaala ama jardiino ku dhex taalo guri dhaxdiisa geel ganjeele inta laga furo ee guriga dhaxdiisa galo geeda ku yaalan wax ka soo cunaa wali cimrigay waa ay dhiman tahay war geel oon arki jiray marka magaalada loo soo wadaayo suuqa in laga beeciyo la rabo buundadii la marsiinayo xakaar iyo saxariir iyo xabriir lagu marsii jiray
lagu sinaa buundada iska gudubkeeda uu gudbayna xoolaha kale looda iyo arigu iska gudbayin asaga buundada markuu geeskeeda yimaado socodoo dhan waa joojinaa intuu seenta kor u taago oo lugaha dambana kala bixiyo ha asarraha laga tumaa علشان قدر له صنقنا جيل بعدين سكو أكسونا إلهي وحو إتصي حمر دحديث عبارت أنت يسفع عن قد اللعبي جيدها جيتين دقيقة قوليها دحديث جيدها كبحن جنجال الله فرع الله بلقى أسعدنا قلبهن سرحنا عن لقتهم أيو جيلي حلولنا وجيدها الصعونة قوليه لقلق حيو ججبي وعمد إويا بدنت ونمدد ليابي صوبود وحاكلو إيقو درنت مالمها كمدا ayaa odayaal gabdho laga kufsaday odayaasha ninku u yaraa aniga ahaa gabdhihii marka la kaxaystay dhinacaas waxa la aaday oo altubweyn xaqiisa aniga tawfiiqa marka deganaa subaxdii aan odayaashii raacay oo gabdhaha laga ka khiyaarinayn markaan raacay odayaal kale u tagnay markaan u tagnay waxa la yiri gabdho wiilashiina hadda xal saasaynayeen dhalinyaro naga soo kufsadeen gabdhihii naga soo wato dhalinyarta ahaayeen ilaa haddan xaqiina ku soo maqan yihiin marka gabdhihii aan baadoonkooda nahay saasana wiilashiina xal noo galeen warkii noogu soo horay wuxuu ahaa yaa mawaalantiin idinka gabar xaal loo abuuray markii horeba gabar maxaa loo abuuray naag maxaa loo sameeyay naag waxaa loo abuuray waxay tahay in nin la loo sameeyay marka haddii noosha waa imaanaysaa waxa idin daarmaxayeen anigay korontada iga tagay odayaasha aniga u yaraa markaasaan waxaan idhi meeshaan khayr ma yaale odayaalan u soo baxnayba hadday leeyihiin naag markii horeba waxaa loo abuuray nine haddiiba fiyooyin waa helaysi waana imaanayne maxaa idin daba dhigo odayaalow balaayadii ka dhacday waa la ogaa iyo dulmigii ka dhacay meeshaas gabdhaheeni waxay iska yimideen ayadoo xilli dambe dhammaantood haddee bili aadan bay ahayn oo ninka dhiig le asna fiirsan karin oo dhammaantood ay nooc kale yihiin marka walaal macaane waxyaabaha aan la soo kulmayn wax laga sheekayn kara ma aha waa rafaad iyo dhib iyo shiddo maxaa marka kuugu murugo badnaa acuudu billaahi min ashaytaan rajiim warniya horta waxyaabahan wax laga sheekayn kara ma aha marba haddii aad wadankii diyaarad ha dalkaad ku sugantaa diyaaradna aad kaga bixi karin adiga carruurtaada markabna aad kaga bixi karin sahay aad dhulkii ku qaadatana haysanin ciyaalna kugu xariiraan saamtarel aad jiidaysid wadankiina lixdaad waxaad kaga shaqaysad lahayn sankii aad taagi karno ninkaad la hadashaba sanka qori kaa gelinaa ay isoo martay cajiin ee maanta 12 hebel oo madiina jira raad hebel oo bakaara jira raad luqli aan ku raadnaa shaxad laba dhalo oo yar ahaa jeebka ugu jirta sharoobooyinka dhamaaday midna waxaan ku raadinaa gaas midna waxaan ku raadinaa saliidii ilmaha wax ugu kari lahaa bacyaal fara badan jeebka waan ku wataa wax laga shaqeeya ma laha islaanta way jirin tahay carruurtu way joogaan biyo subaxdii subaxdii markaan dukadaan biyo garabkay ku soo doona jirgaana garabka saarnaa warshada baastan biyo ka soo aroora jirgaanka ugu horeeya markaan keeno ciyaalkan kaadidii kaga dhaqaa islaantii waa xanuunsan tahay ciidan ma laha kaadidii wixii dhan markaan nadiifiyo kirliyan dabka saara biyo ku shubaa intuu sii saaran yahay jirgaanka la noqonaa waan keenaa markaan keenay gaxwadii baan cidii u karinaa haddana ilmihii baan u qubaynaa mar saddexaadan jirgaanka la noqonaa waa keenaa cidii markaan waxaan u heli karo u jacburiyoon siiyoon quraacsiyo jeebka waxaan gashanaa bacyaal fara badan bacdi xataa markaas ku kushin laga ma gadan karo bacyaal fara badan jeebka ugu jiraan hadda waxa shalay weel ay ku qaban bacyaalka jeebka ugu jiraan laba dhalaan wata oo sharoobooyinka dhamaada midna saliid ilmaha uu soo qalqaaliyo midna gaas ay cawada faanusta ku shitaan shaqaale balaaksi ka shaqaano oo ciidaha oo markaas naftooyinka waxaas ka shaqaanay war dhaladan kasto cawada faanusta lagu shitaa lagu shubo labadii dhala jeebkan ku wata bacyaalka jeebkan ku wata waa soo labisana ninkii arka ninkaana gaajaysan lagu makaraan suunka buukadii ugu dambeysay u xiran dhalooyinka maalintii oo dhan adiga san wax ugu shubala falkeeda gala bacyaalkan waxaan ku shubi karo ku shubana cajiinan maalmaha kamid ilmaha u soo shiiday iyo waxoogaa waryaa oo leega dhigdo ilaahay leega dhigda cajiinkii leega dhigda anigoo ciyaalkii eber aan u imaado oo cajiinkii aan la soo hoyday iyo xoogaaga yaanyada waryaa aan leega sii rabto waliba waa muruga aad iyo tacabjiibsay gurigan iska imid sunooyna iska dukaday cida dariskan adiga inta waxaan dhiri war hadii wax kasta labada cunugo yiriska ay ugu darnay bal wax hadii haysiin wax kasta cida kale u sii sheegan markaas adiga xirsi nabad gali wax la waxba li soo aruuriyay oo ilmihii sida loogu keen waa iska weeysa qaatay cibaadada iska fadhiistay ilaahu aan kugu mahadiyaan nimco waa soo marnay tanna ma ii dhineed waxaan la yaabay noqotay waxa kale igu sii darneed hal nin oo 7 qofood lagu qala 7 qofood hal nin lagu qala ariga subaxdii ma aragtay markuu waaga bari dhaxanta ay hayso inuu jaraynayo irid ganjeela duleela xabada ay duleeleen ayaan ka fiirsanay ninka garbaduub u xirnaa iridiyaan ka fiirsanaa waa la qalay laba jeer marka midida lagu jiido mar saddexaad ma ku jiidaa nin bar soo ordaa sheekh kalaga ma cibaadada qaad masuule kiya ka bedela la ilaha illa allah la ilaha illa intaas la ilaha illa huwa daldala aniga nibirsi waa beelay mana istaagay mana ka tagay irid koronta iga tagday
ninka laa ilaaha illa allah asagoo dhaale madaxiisii go'ay labada dhagood inta la qabtay kor loo taagay aleeri murtadkeena madax ka gooy ilaahu marqaadka dhabarka loo saaray nin kale oo guriga ula jiray ayaa garab kale isoo qabtay maana irida meesha ay korontada igaga tagday waa wax noo dhignaa waa goorma waqtiga marka waa waqti ma maxaa waay xilliga maxaakiimta wixii ka dambeeyay waay maxaakiimta markii jadwalkeeda asdhamaaday kadib waay kaliya inta fadhiistay habeen 6 saac aan xisaabtamay waxyaabaha la soo sameeyay wax ka raqiisan waxaas la soo sameeyay waa raqiis la ila noqdeenba dhibka markaan ark markaasan tacajubon jaabon iri inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun saana ma noo dambeysay markaas waxaan soo xasuustay xilligii saxaabada qolo walba dib hadii geysato ama dhulka la rogay ama duufan baa ku kacisay ama aan dabeel lagu qaaday waxba lagu gooy jiray waxaan soo xasuustay in anaka gacnaheena lagu gooynayo dhibkan anaka geysanay oo ama kufsa noqoto ama dhaxa noqoto ama jidgooyo ha noqoto ama misaal dadku dukanaa maanta anaka khudbada jimcada anaka khudbaynayno fadhiisa imaamkii la yiraahdo jimca iiday tahay moore anta misaajka soo wada galan maanta anaka meesha madax ka anaka khudbaynayno la yiraahdo wixii aan soo sameynay inna laga goynaan ogaaday midida lagu biraynaan ee naloo soo diray ayaan ogaaday walaal macaan marka mid laga sheekay karmaa aad mar haddaan soo sheegnay murugadii iyo yaabkii maxaa kuugu farxad badnaa muddada 20 sano dalka aad joogto farxad walaal macaan farxad ilaa ay hadda farxad ma arko farxad ilaa ay haddaan ku ma arko socod dareen ku soco fadhiisa dareen ku fadhiisa jiifa dareen ku jiifo wax farxad leeyahay ilaa ay hadda ma hayo dad farxad dhalin kara oo u jeedo in muuqdana ma laha ilaa ay haddaan ku ilaa ay hadda magaalada aan dhax joogo xamar wali ma arkin farxad waxaan arkaa markuu masqmaasoo harmaan haray madow baan ahaanag qaaluu inna lillahi wadna kullu buuxa bal aan marka ku yarna siiyo dhinaca majaajilada adigu kaalintee kaga jirtaa xageesa ka baaysaa aniga caruur iyo ilmo iyo naago ma la dhahay kulli waxa soo dhan barto ay rigaysan barnaamijka mawalada caruurta jimcada aniga wada iskaba dhaaf haweenka iyo caruurta iskaba daayay dadka waaweynka xataa way soo galaan barnaamijka mawalada caruurta ciyaalka iyo wixii lamid ah ayaan ilaadaa marka hore furitaanka oo ku furtaa alxamdulillah waxyaabaha dhibka oo la soo maray waan kaga sheekaya waxeerka la taayay waa kaga sheekaya nimcooyinku ilaahayna si waa kaga sheekaya marka adiga wax waliba geesan ka taabtaa wax waliba anigoo waliba xoogaa adiga markaas sidaan doona waliba u si hadli karino ha waliba isiyal cilna laakiin iska inaan fardi baxa jecel ma marka qarqad waa ishil ma fardi baxa marmarna dhacdooyinka magaalada ka dhacaan ayaan wax ka sheegnaa oo asxaabtay anigaba barnaamijkaas wax ka duubnaa sheeka ahaan sidii wax u jiraan heerka la marayo codka aan ku jila midkaan hadda ku hadlaya kow ee mid kaloo la leeyahay abjiro adjiri iko adii gadeenkaano kale waa ii dhiman yahay allo wadankan waa lagu soo raaxay haddana rafaadkiisaan gacanta ku haynaa ilaahay waqtigeedna dilaysa adigaa ogsoon codkaasna wax waa ku jira ha gooyo kan ugu baxdo waa magacaan gooyo aniga la ii bixiya ilaa hadda aad dibsadaa sababtoo magacaan gooyo dad baan ku duqay jiray qolada mingiska tumaan qolada boorna tumaan qolada adiga wax walba marka shirka ay ku dhex jiraan ayaan ku duqay jiray qaasatan waliba boorna ay mingiska laxamkooda intan soo xafidi ayaan tartiibkoo yar gooyo albaakume gooyo geesaad waryaa gooyo geesaadan macnaheeda hadduu alla idmo maanta maalin ahaynoon markaas hadduu nafta alla igu dhaafo oo alla ii dhaafan caafimaad qabo ayaa macnaheeda sheekay doona laakiin markaasoo laxamkoodan soo qaaday ee xilliga markaas hogaamiye kooxeeda carcar ahaa ha camaamad gaduudan inta madaxa saartay garkana deystay ayaan idaacadana ka sii daynay subaxdii habeenkiina dadku iska dhaxmaray say u dhageysanayna wax kaga dhageysan jiray galabtii 10 saac ay baran duubi jiray habeenkii 3 saac BBC markaas ha xiisayleed dadka oo dhageysanaa waa iska ag joogsan jiray ima fahmayna imana aqoonno leegmana filayn marka alxamdulillah waxaasna waxaan ku keenay islaamtayda ayaa waxa la yiri dawladda ay qabtaayo dabeela ku hayso iyo kan waay islaama inta u yimidina waxay yiraahdeen ha waa wareereen waxa la ninkan subax la soo galiyo iska labisanayo magaalada iska aadayo oo hadan habeenkii iska soo galay baagamood waa ninka alla saa ilaganta uu taagan ninkan hooy naa kala isku la qabaa 7 naagood oo iyadaba ka sii daaweyn oo qalaleen ayaa dhaxda gishteen dhibka ay geysteen ninka ifurda do kale daawayde duulaan qabaa dhaho kan dhaho saan intay ka baxeen waxaan ogaaday in faraska la saaray ha alaa kul hal naagahi iyada ay saaxibaha leedahay ana saaxib la noqday islaamta ugu yar ay saaxib la tahay mid ugu yar waa qalash qoyaan male
waa inta da'dooda ila egtahay waa dad banaanka laga sii biilo anigoo yaaban bay haddana kabihii ila soo galeen lugooyda islaanteeda waan u sheekay waxaan idhi walaalay waxaan fatuut waaye aniga waad i ogsoon tahay dharkaan iska nadiifsada iimaankaan iska qabaa naag kale iska dhaafay idinkaan wax idin heli karin waa taa dariska xataa qaada sokor ah darishadna laga soo dhiibaan cunuga caanihii sokor la'aanta uu cabbi waayey marka walaalay damiir ma lihimiyaa dhiig ma lihimiyaa kuwii agteeda jooga anigu wax u tari waayey qof kale madaxa siaan kula galaan qof waalmaad malis maskaxdayga joosto waay ee ummadaan ku waalin markan wixii waa diiday islaam maalinaan guryaha joogi jiray hal maalinaan marka guriga joogay maalintaan guriga joogo dariska ima dareemaan inaan guriga maqanaha la moodaa markaasaa islaamihii iyada rabshadaan ku fureen oo daashka sheeko u soo galeen anna waa jiifaa ilaan war ma ii haayaan daashkay sheeko isaga galeen meeshii basad ahayd islaamihii sheekadoodiyaan dhagaystay waxaan ogaaday meesha laga galaba inay tahay dadkan waa fiirsaday dulaal musmaaraan ka fiirsaday oo baksan wejiyadoodan fiirsaday go-aanaan gaaray in ayaga la saaxibo si arrimahii igugu toosaan maadaama iga dhaqaalrooyiin ayagiyaan la saaxibay mid waliba fiilidayaan ku surtay war adiga waxaan ka dhaadhacsiiyey inaan naag kalena qabin ilmahaana ciidan u dhiibanaa lahayn aabba ii noolan hooyo ii noolan wax ila dhashtayna iisan jirin gabadhaan walaasheena daris nuwana aduu daris aakhira darasaalay saanay dhibkaana u haysaa war halii la qabtaan islaamiyan ku calaa cali maadaama aan iska majaajilis iska ah ayagiyaan isu daadiyey war mid waliba waxay samaysay xisaabay soo daad biil iskaba dhaaf wixii laga tumi lahaa xoolihii laga tumi lahaa iyada macal ari waa la keenay macal biilaan helnay ilaa ay hadda 360 kun ay ugu dambaysa manay weydii karaan markaasaa weliba waxaa leegu soo xujiyey markii intoo dhan lasoo diyaariyey ninkaada waa naqaan ana kasankoo tagaa waxyaabahan raalli kama aha maalinta adiga lagaa tumaa dhiigga lagu siinayo waa inuu joogaa weliba oo cunadan wax ka cunaa markaasaan ilaahu markhaati ka ah walaashiida ana raalli kama ihi waxaan adaa igu qasabtay waa kuu sheegay dhiigga la cabahay waxaa ka roonaan ila qansiirkood dubata cun aayadda waxay soo hormarisay dhiigga iyo walaxmo qansiir markaas kadib aa qansiir gadaal laga sheegay hilba doonfar ma cune maya khamri ma cabeen maya qamaar ma dheele maya war waxaan markasay dhiig ku cabaysaa walaalay raalli kama ihi maya tiri adiga waa kordhas waa waxaan leega tumaa calaa ay kula xal dabagalaye wixii sameeyey raashinkii wax ka cun deenoo lagu leeyahay waaye waqtiyada iska bixay waa ka noolaaday wixii anigoo raalli ah meesha isgay qalbigay ma ogsoon yahay ayaga wixii waa isoo toosan reerkay sidii ugu dhaqmay markaas kadib oo reerkay ii toosay islaanteedana saan war ugu waday ogaatay markaan waxaan fatuud inay ahaayeen ilaan dadka isqaba muqsanta guriga wada joogaan ay ogaatay arrimahan in waxba ka jirin ilaahayna raalli ka islaantay raalli galin tartiibkooda hashin fay ii noqotay markaas kadib aan dabada u soo qabtay marka hadda waa idaacaan u helay muqsanta qoladii booran tumaysay qoladii mingis tumaysay ajaa'ib war muslimka ilaahay farta gishteen heer waxaa la gaaray in aniga iyo marshaale ilaahay u naxariistay aw kuku allah u naxariistay in la yiraahdo aw kuku iyo marshaale iyo gooyo baan sugayay mahdi dhaylan sugayna mahdi dhaylan markaas la ilaha gooyogan sheekadii milaamila la bixiyay heer waxaa la gaaray in nala sugo 3 saac BBC aan la dhageysan gooyo albaakume heesaasan qaadiri juxjuxdoodaan jili jiri war adiga aniga dabada lam u qabtay ilaa ay hadda magacii gooyow aan raalli kan qofkii mahdi yiraahdo mahdi dhayl qofkii yiraahdo dayma kala fiiriyaa ilaa hadda on iraada ma sha Allah waa dadkii hore gooyow wixii yiraahdeen kuwii hadda dhowaan iraada marka ma walaal macaana khayr Allah nasiye nabad iyo istiriix ilaahan ka sugina laakiin ilaa ay hadda qof waliboon arko ama jeegaha soo jirto ama jaakatiga soo gishto ama garbaha soo xirtaano ama kaba soo xasiistaano ilaa ay hadda ma haayo hal qof oo cadaalad oo raaci karnoon arkaayo oo wadanka u danay wili ma haayo wili wadna kurigiilan ku jira wili farxad wili ma isoo marin ilaa hadda gaalkay waxaa barnaamijkan kuu soo diyaariyey Aamin Media Limited. su'aal kale aan aadaynaa waa maxay aragtidaada ku aadan muhiimadda haweenka Soomaaliyeed ay leeyihiin iyo doorka maanta ay Soomaaliya siyaasadeeda ka qaadan karaan haweenka Soomaaliyeed markan u soo jeesto door muhiim ay ku leeyihiin laakiin maynan asisto ma la heli karo mana dhacayso mana laga yaabo inay isku duubsamaan haweenka sidoodaba wax aad naar ku galaysid ayaad qabanaysaa oo ku sheegayeen haddii ka dhacaysidna ay ka diidayeen naar baan wixii lagu galaa finalkan aday kugu soo noqonaysaa haweenka Soomaaliyeed meel kasto joogan talaabo kasto la qaado dib walbo dhaco ayagu ku dhacaa saas ay sii tahay haddii aad wax u sheegdana kula garan maayaan kii yiraahdo ii soo banaan baxo ee carab dhaw waa carab dhabayn wuxuu wado khayr miya shar miya isweydina ma hubinayn kii qoryo la ordaayo dagaal u socdo hebel waaye hebloobo u socdaa waa la sacabtumay biibay ka daba qaadeen dahab bay u galeen wax walba ay soo sameeyeen aad iyo aad tafraaruq u galeen oo laga faa'iideysto dibkii dhan ayagu ku dhacayaan haweenka haddii le intii isku duubsami lahaayeen
ayaga iyo caruurtooda yar yarka macnaha kuwa qaan gaaro qoryaha qaada meel igaba dhig laakiin kuwa yiriska oo soconayo iyo ayaga hadii hal mid intay noqdaan maba la heli lahaa labaati ku gaxta in lagu jir lahaa ma aaminsanay mar wala laga bixila oo hal meel ahaalayeen wariya soo boodi dul yara soo boodi مو بنام بحينه ابتلوا كتلنا دنتر ما كتلنا قويا بسوبر ماي مو بنام بحينه هبلا سوبر وقامي واي مو بنام بحينه قبيل مية إهلاين أو هالميل أهلاين كلمة في عنا له لها شددان دبكان قحان رفات كان بطل قدامنا بير قدامنا ودن جديس لجو قاي لقى بحكنا عيل كيسة ديكر حصل كوس نقول عن تاجنا خاركود ديكر وإنتن خاركود باع عروريا ما لقى لهن waxa dhamoon ka dhiman waxay tahay bulsho markaad aragto markaad rabto hadal inuu ka faafo raadi waxaas intaysan jirin warbaahin intaysan jirin waxa dhici jirtay waxay rabtay inay ka faafaan meelaha naagaha ilmaha u badina lagu sheegaa markaad ku sheegdo wixii raadi amal ku faafayn bulshada lagu sheegaa waa haweenkiyan waxaan ka waayna inay isku duubmaan mid noqdaan ilaa ay hadda tafraaruq jira u fiirsaday magaalada xamar haweenka ilaa ay hadda oo tafraaruq jira kala qaybsan ayaga hadii mid noqon lahaayeen كي خير نودين أن بنامبح يسميلنا كورتيلان إيمانك قد جهت وجودهن وقال لها هذا إيمانكم نقصي بحيانه هذا مرك الله في رجنا سياسة هذا رئيس الوزراء كحجنا ويقاتن وزير وزارة الهاصق أرنب بشدة برلمان كوحبال لقسي هذا ما الله أرنك سياسة دي بيوصل بنامبح يعني كلمه دي دور كذا قادنا يعني ولا المعنى قال الله كسيو هرتقف يرمي جون وين بنحالي الدنيا مدة سجوي الحمد لله وقتي كان دمر الله لكن حوينك ما دام لسي حلك ما دام لسي سان ما دام ده أفرمن أياد لذا صاحب خوص مركب أفيرسو إما قال هذا دتك كنول إن ده أرلسي ده حق الشوط هذيك معناها لفها جيرت أنت تحكي بعض لفها سيقول تروح عاتقدو ولا المعاني غير هالسجن إلهي حقيس الله مرة جدّو ما نكرر جدّين لكن ولي صاحب هوان بس المجرد waxaadna ka dareemi kartaa magaalada alxamdulillah waxyaaba saan ka daran waa la soo maray laakiin biseel oo bili aadanka maya war hadeertan hadii intan ku dilo isla marxaantii waxaan kugu dilay intan xareesto laba jeer aan wareegto dadkii soo ordeen hadii igu hor yimaadaan anay wax weydiinayeen aniga wax soo dilay wax weydiinayeen waa janganinimo aqliyan jirin ebre meesha aan u ordooyno qofka laga soo dilay qofkaana ka yimid asawirta aan qabanaba dhihi maayaan ama qof yar ha aado ama qof weyn ha aado la qaban maayo dhisma is haysato oo guryaheedii fiyaal waaweyn xataa ma oo dadkii wada nool yihiin oo wada soo wada jeedaan waliba la saxanin oo qof lagu dilay oo qofkii xabada maqlaayo ko irid ka soo fiiriyo ko darbi ka soo fiiriyo ko koreer ugu jeed ay wadihiin ninkaasi soo shaatiga noocaas ah dil aan la dahaynin oo qofkii lama garanayo la leeyahay oo la sheegaynin wali lama bisla naagaha iyo ilmaha booliska shaqadu qabanaad arkaysid haweenka iyo caruurta markay la shaqeeyaan ay fay noqotaa shaqadooda hadayna haweenka dadka xaafadaha degan ay la shaqeeynin dadweynaha xaafadaha degan hadayna la shaqeeynin qaasatan waliba haweenka shaqadaas shaqa boolis ma toosaysi aan been la sheegin waxa dhama wax toosii waxay yihiin bulshada xaafada degan xaafad wax ka dhacayn ama cunug yara u jeedo wax ka saayo ama haweena u jeedo ama gabar ba u jeedo ama wiil yara u jeedo qofkii waa la arkoyaa waxaan rabaa inaan ku weydiiyo dumarka waa loo xog sheegtaa guriga markay joogaan iyo hataa banaanka markay joogaan ayadoo loogu awood sheeganayo dumarnimadooda arrintaasi balka waran adigu sama la kulantay dhacdaas taas oo kale taa inkastoo mar aad ii taabatay in gabdho la today iyo waxa iga sheekaysay marka aad la kulantay maxaad dareentay saddexdaas su'aal israaci walaal macaani aniga hal habeen ayaan la kulmay dhacdo xaaskan aniga qabo su'aal daba gaab oo jeeniso aniga laha ayay gishi jirtay meesha aan deganaan meel xumayna ahayd habeenkaasu la ilaaha illa allah ya gaafirun qaafiruka ya muslimin idoo dhacayso ayaan aniga sariirta ka soo boodi surwaalkii aan ku saaxay jir daba gaabka ah islaanta ayaa iska idu inta iyada ugu dhagan tahay ayaa adduunyada lagu kala kacay oo islaamihii si la rabo la yeeshay waan imid bar aan u fiiray waxaan qabto waa garan waayay haddana waxaa meeshii sii jirta talaabo ma qaadi kartido haddii aad qori haysato xataa ma ku dhaqaaqi kartido dadkii aan raadsana ma dhihi kartid ama qof falkii xumaa ku jiro inaad qor u qaadato xabad ma ridi kartid gurigaada haddii ay xabad ka yeerto xabad waa lagu imaanaba qorigaasaaba lagaa soo doonana maba lagu arkaba inaad wax dili kartid waaba lagu yasaayo barkeedadoo ilaahay aqliga ka qaaday aad baad uga xuntahay waa ka xumaad marka haweenkan awood loo sheegay haweenka ee la yiri waliba war haddii ay ku dhibaan xataa usha lagu canaananayo ee lagu yiraahdo la canaanto rasuulkana subhanahu alayhi wasallam lagu canaanto ilmaha laba jirkaan ku canaanana anag ayaa awood inta loo sheegdo qasab wax loo qaadana waxaaba igaga sii daran ninka qasab wax ku raadina ma dameerba war qofta hadii soo hembire kanaasan wala la gooyo maxan ayna soo dhin balse damirkii horta ku kaaga qasabkaas muxuu yahay waa tahay bal kaalinta dhalinyaradu ay hadda dalka horumarkiisa iyo wanaagiisa ku leeyeen dhalinyarada aad iyo aad bay horta dib u hayaan dhibka dhan noo socdana ayaga waaye dhalinyarada waa tii dhulka aynu leenahay dhibaatada ka dhortaa dhalinyarada waxa xabada loo hormarinayo waa ayaga
waxa loo adeegsanaa waa ayaga haddii ay dhalinyarada qorigaas ya haddii wanaagsanaadaan waxaanoo dhan daaqaday ka baxayeen nin sanka taagi kara ma jirto waata odayaal dhaqameedyada ka waran iyo kaalintooda iyo inay dibuseen dhaba Soomaaliya ka keeni karaan odayaal dhaqameedyo markaad soo qaado oday ma jiray alla oday hana siiyo siyaad bar maalintuu baxay ilaa iyo hadda intuu u dhaxays waxaan eebsanaa aadan eebsan ama dhintaa leeyahay qofka markuu dhinto cirbad yar oo dirta ama dhagax ku fisaas oo ah leeyahay malkamada u yimid lama dhahayo waxa dhammo dhibkan ka deg waayo toos waayo waa odayaal hal oday on maanta aniga aragtideedii aan aaminsanahay ma jirto hadda soo dastuurkii iyagu iyo baarlamaanka xulistiisa kaalin kuma lahayn waxba lagu ma jeedo si lagu soo xulinay magaalada goobjoogan ka alxamdulillah warbaahinana waan ka dhaxshaqay waan dhax jooga oday daacad ah oo nadiif ah ma jirin mid nadiif ma jirin mana arkin mana u malaynayo ilaahay waa noo keeni karaa laakiin oday dib uusan ka imaanin cid keentay ma jirto sidee marka Soomaaliya dibushin looga helo hadda odayaashii aad arrinka ku tilmaamayso waxaa lagu heli karaa qof waliba inuu Allahi abuurto inuu ka baqaa oo xasuusto adduunkan in loo abuurtay laba shay kaliya xumo iyo samo imtixaan waa arladan waxa geedaha iyo buuraha iyo badda iyo biri loogu sameeyay waxay tahay in la isku imtixaamo asxaabihi si ugu dagaalamayn ilaahay nabi maxamed intuu soo daba dhigay hal malag arad waa la gadi kari maxaa dadka imtixaan loo soo qaado muslim iyo gaal loo kala baxay loo dagaalmay imtixaan waay marka dadkan imtixaanka waxa loogu bixi karaa in qaaf rabbak ilaahay loo noqdo ay ilaahay ka cabsaan qof waliba naar inay jirto jannana ay jirto oo ogaado beerta aakhira markaad maqasho adduunka laga tabcaa qof waliba beertiisa inuu tabcada laakiin adiga hadda intaad idisho ayaad magaalada iska dhex soconaysaa beer aakhira ma jirayso odigii baa dhahayo ninka diidiis meesha laga keen la tola suuq imaan alla bixiyo tolkii waa bacdi madoobaad ayaga qaybsanayo qofkii diidiisi waa reerku ka dhinta hataa qaadamayn oo qobo ma joogsanayso mana harayso oday waana ibtilad waxay ka joogsaysi oday nadiif oo alla ka cabsada ilaa ma laga helo xabadka boqolkii hal xabba ma xastari karaa biyo badan oo fadhiyaan oo daadka qaaday oo kala waay marka odayaasha waxa dhammo ayagana ibtila wada marka la isku soo duudo macal haween oo macal dhalinyaro haweenka guriga ka soo baxan odayaal dhale ama odayaal qabo wiilka dhalinyaro guriga ka soo baxa qori wato odayaal dhale oday waa waxa ibtilada dhanba ay ka dagi waysi waata maxaad isleedahay hadda waa la sameeyay dalkii waa laga qabtay ama la sameyn waaye ama loo baahan yahay in la sameeyo walaal macaana waxa loo baahan yahay wax waliba in la soo koobay ku wanaagsan nin waliba mas'uulan ah dhahayo mas'uulan ay af ma ku noqoto birita xisaabtan baa ku sugayo meel lagu soo joogno ma ogide cadaalad Allah ku tuso markaas nabad la heli karaa maxaa la sameeyaa isla hadda maxaa la sameeyaa dalka waxaad ka qabanaysaa masuq iyo kii wax qaldan ku hadlaya inaad xaq ka sheegdo xaq inaad ka hadasho oo aad wax daboolin wax dafarin xaq inaad ku hadasho kaasa macaan adiga wanaagaada birita nafsadaada waxyaabaha la weydii doono ku xisaabtan Allah hadaas ka baq cadaalad taasoo kale in la helo ilaahay laga cabsado maana wali saaxiibada qori hatta cariiri galo qalina cariiri galinaysan dareema anaka madoobana waa isna qaana muddo badan waa soo dhax joogi war qalinka naftigiisa haba lagu shaqeystee bal adiga waxyaabaha lagu fahmay hatta inaad xoogaa ka gaabsato war boqolkii adiga boqol markay ku soo gaarto dadkan uu qayb lagu yiraahdo meeliyo adiga boqolkii dadkan uu qayb lagu yiraahdo dadkii uu qayb lagu yiraahdo ninkii waxa soo gaaraysa 5 shilin markay soo gaarayso hatta adiga 10 xad laakiin markay tiraad boqolkan konton xada ilaah baan kugu dhaariyay taas ceeji Soomaa mid kale nimcadu alla nasiib bal fiir wax wali baan heli karnaa wargaleedan anaka noo soo diraa macaawinada 6 bilood la sugaa oo daawo badan ku baxayso biyo badan ku baxayn oo tubooyin far badan ku baxayn cagaf badan ku baxayso 70 iyo taataabasha anakan dhulka inta iska gurudno ayuu nimca ilaahay noo kana roob ay soo bixisa 70 markii maris waa taataabana sabuul baa laga cunaa war digirtaan qaaliga oo salbukad lagu leeyahay dhabarka u rono lafa u rono xidid u rono kiliyaha u rono oo cagaarta oo qaaliga digiro dhamay uu qaalisan tahay ba maanta waxa xasuustaa inuu dugsile oo baadiye joogo nabar markuu baqi waayo iyada inta la tumaalo saari jiray ilan laba indhoodan iska qabnay waagaaso ba maatooyinka waxa lama aqoon digirtaas 40 maalmood ay noogu bislaataa nimcadaas dhamo ilaahay nasiib si sim baa noo baxdaa waa taa qaalina laga dhig digir baa noo baxdaa galay baa noo baxdaa nimca waan haysanaa banaankan u shaqeynina waa iimaan darnahay ugu dambeyntii halka maanta Soomaaliya maanta waxay taagan tahay dawladnimadii ku meel gaarka laga baxay dawlad buuxalaysa baarlamaanka jira wasiirada jira xukuumadda dhisan shaqo socota institutionkii sharciga iyo dastuurka wala sameey meesha aan maanta joogno sidee hore looga socon karaa horumarna Soomaalidu ku gaari kartaa taas waa kooban tahay مشكلة مالها هدي قفل بمسؤول أول إيمان أو سماي دونه وح مشكلة مالها وح إسكير عدالة أديك ماشي أجوك حتى ورثي أديك قاعد يزيد أديك نفتك ورثي أديك قاعد عدالة على جاهله إسكبت ده هدي وح كله ضد مسؤول أتكلم قطة أديك نفتك أنت تسكبل هذا ورثي عدالة سيدا أو الشيء قايو إسكجس سيدي واتاي أدي أبغى ما تنتهي ما ذا لو أهم تجلسه عانه ضلك جديد جديد سلقي قناة وها برنامج كنا أنت أيام كسر قبل كمينيا
وارفعنا منا وأسطان وطني نمو وإسكاشي كوانيمو وأذيك شو سوكان